السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود واضح أدي هذا ومهتنتهين مقال كان وحنا ربعنا ندخل وذاقه مدحوينا ترامب أي حالة waxa uu sheegay dagaalka Iran in uu goor dhow dhamaan doono taasina waxa ay hoos u dhigtay qiimaha shidaalka halkii fuusta lagu kala iibsado kadib markii maalmihii la soo dhaafay sare u kac weyn laga dareemayay Iran waxa ay leedahay nabadda gobolku hadda inaga ayay naga go'daa oo wax wada hadal ah ma jirayaan xitaa Trump oo yiri nabad kuma noolaanayo hogaamiyaha cusub oo Iran ay dooratay iyaguna waxay u soo hanjabeen Trump Mareykanka qiimo intee leeg oo lacageed ayaa ilaa hadda 10 maalmood ugu horeysay dagaalkan uga baxday mase sii wadi karaa dagaalkan waan idin la wadaagaya ugu dambeyntiina waxaan rabaa inaan idin la wadaago arday dugsi sare dhigata oo macalinkoodii brank iyagoo ku sameynaya oo dhintay arintaasi sidee ku dhacdayna waan idin la wadaagaya intii 11aad ayuu galay dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iran laakiin waxa muuqata in hadda Israa'iil iyo Mareykankuba dagaalkan aysan sii wadi karin madaxweyne Trump oo shalay xubnaha Republicaanka kula hadlayay magaalada Doral ee gobolka Florida ayaa waxa uu sheegay in ujeedkii ay lahaayeen dagaalkan ay ka gaareen isla markaana dhawaan la soo gabagabeynayo laakiin hadalkaas waa uu ka bedelan yahay dagaalka bilowgiisii Trump midii uu sheegay oo ahaa dagaalkan bil amaba ka badan in uu socon karo laakiin Mareykanka iyo Israa'iil ba dagaalkan sii ma wadi karaan Iran waxa ay si aad ah u duqeynaysaa Israa'iil walow qasaaraha ku dhacay ay warbaahinta u diideen inay la wadaagaan laakiin qasaare xoogan ayaa gaaray oo naf iyo maalba leh sidoo kalena bariga dhexe inta badan wadamadii bariga dhexe hadda waxa ay joojiyeen soo saarista shidaalkii taasi oo qatar ku ah tamarta guud ahaan caalamka oo sare u kac weyn laga dareemayo qiimaha shidaalka halkii fuusta dagaalkan markii uu bilaabanayay $67 ayay ahayd laakiin maalin ka hor waxa ay gaartay $119 hadalkii Trump shalay markuu yiri dagaalkan waa uu soo gabagaboobaya hoos ayuu u soo dhacday oo $85 ayay timid marka shidaalka iyo waliba suuqyada caalamku waxay ku xiran yihiin siyaasadda markasta oo siyaasadda isbedel uu ku yimaado saamiyada ama hoos ayay u dhacaan hadii wax wanaagsan aysan ahayn oo dagaal iyo arrimo la xiriir ay tahay hadii wax fiican ay tahayna sare u kacaya suuqyada laga dareema hadda maalmihii la soo dhaafay suuqyada saamiyada hoos dhac weyn ayaa laga dareemay laakiin shalay sare u kacaya laga dareemay Dow iyo Nasdaq iyo sidoo kalena kuwa kale haddaba marka madaxweyne Trump laqaadkiisa xilliga ololaha doorashada waxa ay ahayd in sicirka shidaalka uu hoos u dhigayo laakiin dadka Mareykanka ah maalmihii la soo dhaafay jeebkooda xanuun ay ka dareemayeen marka ay tagaan gas stationada oo gawaaridooda shidaal ay ku shubanayaan sare u kac weyn ayaa laga dareemayaa meelaha qaar $5 iyo $6 ayuu ku sii dhow yahay hadda anaga gobolkeena $2 ayuu ka hoosay intuusan dagaalku bilaaban haddana $4 ayuu ku dhow yahay marka waa dareemi kartaa qiimaha inta sare u kac weyn laga dareemay marka dawladda Iran hadda waxa ay leedahay haddii hogaamiyaheena cusub Mareykanka iyo Israa'iil ay mar kale taabtaan arintaasi waxay noqon doontaa mid aan la isaga hareynin Trump ayaa xitaa waxay ku yiraahdeen adiga nafsad ahaantaadu taxadir muuji ee ka digtoona arintaasi Trump iyo Israa'iil ba waa ku sheegay in hogaamiyaha cusub uusan sii noolaan karin ninkan Mujtaba Khamenei oo uu dhalay hogaamiyihii hore ilaa ay hadda ma uusan la hadlin warbaahinta mana la arkin laakiin waxa loo maleynayaa in uu ku dhaawacmay duqeyntii aabihii hooyadii iyo xaaskiisii lagu dilay oo dhaawac uu ka soo gaaray dhaawacaasina laga daweynayo inkastoo hadii uu dhaawac halis yahay lama doorteen laakiin waxa laga yaabaa inuu dhaawac fudud yahay marka wararkaasi ayaa oo aan la hubin ayaa soo baxay dhinaca kale Mareykanka dagaalkan si ma wadi karo maxaa yeelay lacagta ku baxaysa ayaa waxay tahay fooq al-aqli hadda 10 maalmood oo u horeysay Mareykanka dagaalkan waxa uga baxay $6 bilyan marka hadii 10 maalmood oo kale uu sii socdo macnaheedu waxay tahay $12 bilyan in ay baxayso arintaasina ma ahan arin dawladda Mareykanku ay adkeysan karto arinta kalena waxay tahay dhinaca hubkii waxa la leeyahay Mareykanka gabaabsi waliba gantaaladii difaacay ku yihiin xitaa madaxweyne Trump waxa uu la kulmay shirkadaha hubka soo saaray ee kontraktiyada kula jira wasaaradda gaashaandhigga oo uu leeyahay waa inaad hub fara badan aad soo saartaan arintaas waxa ay muujinaysaa marka dhibaatada dhinaca hubka iyo dhaqaalaha ee Mareykanka dagaalkan uu horseedayo marka saldhigga dhexe ee Mareykanka ee Sitcom waxay leeyihiin 5,000 oo bartilmaameed ayaa 10 maalmood u horeysay Mareykanku oo Iran ay leedahay ay bartilmaameedsadeen laakiin arintaasi qiimo yar kuma kacayso waxa la 20 qaybood oo ciidamada iyo hubabka kala duwan ee Mareykanka ayaa arintaasi ka qayb galaysay marka
in hadda marka 10 maalmood 6 bilyan oo dollar ay ku baxdo macnaheedu waxay tahay dagaalkan in uusan Mareykanku uusan ku sii jiri karin oo qasab ay tahay in uu isaga soo baxo xilligii doorashooyinkii xilliga dhaxna waa ay soo dhow yihiin hadda hal xildhibaan oo kale oo Republican ah ayaa waxa uu u bedeshay in uu madax bannaan yahay oo independent yahay marka Republican ahaan uu u diiwaan gashanaa hadda independent ayuu iska dhigay marka sida muuqata xubnihii Republicanka qaarkood ayaa hadda xisbigii Republicanka ka baxaya oo si madax bannaan isku diiwaan gelinaya taasina waxay sii yaraysay aqlabiyadda aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka ee xisbiga Republicanka ah walow hadda ay jiraan xubno doorashooyina oo toddobaadyada soo socda dhici doona marka sidaas darteed waxa muuqata Mareykanku inuu marka dagaalkan uusan sii wadi karin Israa'iil iyadu waa la mid dadkeeda dhulka hoosteeda ayay ku jiraan habeen kasta gantaalo kala duwan oo mid waliba midka kale uu ka xoog badan yahay ayaa lagu duqeynaya caawa ugu dambeysay gantaaladii ugu dambeeyay Iiraan waxay tiri wixii hore isticmaalayna kuwa yar yar ay hadda kadib hal tan iyo wixii ka weyn ayaan isticmaali doonaa dufcadii 33aad ayaa caawa lagu gamay Israa'iil marka iyaga nafsad ahaantoodu waa dhibkooda waa qarsanayaan laakiin jug aan yareyn ayaa gaartay bariga dhexe waxaan filayaa marka inay dhihi doonaan Mareykan saldhig dambe kuma yeelan doono wadamadan maxaa yeelay dhibaato weyn ayaa usla soo gudboonaatay hadda Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Qatar iyo Bahrain iyo soo saarista shidaalka waa ay joojiyeen waa tan diyaaradaha iyo gantaalada loo qaybinayo saldhigyadii Mareykankana waaba la baabi'iyay marka haddii marka aysan ku difaacaynin hadda wadamada Carabta waxay ogaadeen in Mareykanku Israa'iil oo kaliya muhiimadda uu siinayo iyaga aan dan laga lahayn gantaaladii difaaca dhawaatay inta laga qaaday Israa'iil ay soo geeliyeen anaga canugan halkan noo jooga ayaan difaacina adinka maxaa naga giin kale marka sidee u ogolaanayaan wadamadaasi marka saldhigyadaasi markale Mareykanku inuu dib intuu u dhiso ay halkoodii ay ka jiraan arrintaasina sidoo kale waa arrin kale oo Mareykanku laga yaabo inay caqabad ay uga timaado marka dagaalkan uu dhamaado dhinaca kale marinka Hormuz hadda Iiraan waxa ay leedahay wadamada midowga Yurub ee safiirada Mareykanka iyo Israa'iil soo ceeriya maraakiibtooda waa u ogolaanayna inay halkaasi soo maraan shidaalka wada Mareykankuna Trumpna waa kii qoraalka bartiisa Truth Socialka ku soo qoray leeyahay haddii ay hor istaagto Iiraan maraakiibta shidaalka wada ee Hormuz marayso in 20 jibaar in ka badan intii aan garaacnay ayaan garaacayna oo maxaa u dhiman hadda nuclear in lagu dhufto moogiye Israa'iil Iiraan maxay Mareykanka iyo u rabteen Israa'iil waxba marka hanjabaadaas iyagu waxba uma arkaan waxa marka ay leeyihiin haddii safiirada Mareykanka iyo Israa'iil wadamada midowga Yurub ay soo ceerisaan waan idin ogolaanayna inaad marinkaasi Hormuz soo martaan 20% guud ahaan shidaalka caalamka waxa la leeyahay marinkaas ayuu soo maraa Iiraan waxay leedahay markaba kays ku soo deemray ilaa hadda laba markaba ayay gubeena u maleynaa intii dagaalku uu bilowday ugu dambeyntii bal ka waran haddii macalinkaada intaad istiraado barankii ku sameeyo oo macalinkii geeriyoodo waxay ka dhacday gobolka Georgia macalin la yiraahdo magaciisa Jason Hughes oo xisaab dhiga 40 jir ah ayaa ardaydiis waxay doonayeen barankii ku sameeyaan barankigaasi wuxuu yahay toilet paperkan musqulaha dadku ay marka ay galayaan ay isticmaalaan ayaa waxa guryaha korkooda lagu tuuraa isla markaana haddii gurigaada hortiisa geed uu ku yaalo laga soo raaraciyaa meelo kala duwan marka waxa ay tahay branki hadda dhalinyaradu muddooyinkii u dambeeyay ay sameynayeen macalinkuna waa uu ogaa ardaydiisa inay u imaanayaan oo brankigaas ay ku sameynayaan marka waxa uu doonayay inuu qabto iyagoo falkii gacanta kula jiro waa uu arkay waa uu soo baxay inuu ceersado isku dayay dhulka qoyanaa waa uu kufay marka gaarigii ay wateen ayay marsiiyeen ma aysan ka cararin macallinkii inay u gargaaraan ay isugu dayeen 911 ay waceen laakiin markii isbitaalka la geeyay dhaawac ayuu u geeriyooday marka 5 arday ay ahaayeen 3 wiil iyo 2 gabdhood waa la xiray marka wiilka gaariga waday Jayden Ryan Wallace ayaa la yiraahdaa waa 18 jir arday dugsiga sare dhigata ayay ahaayeen marka waxa lagu soo oogay dambi ah dil uu gaari ku geystay inuu si taxadir la'aan uu gaariga u waday kuwa kalena trespassing iyo leran ayaa lagu soo eeday marka macallinkii waxa uu ku geeriyoodaba barankii ay ku sameynayeen ayaa macalinkoodii gacantooda ayuu ku baxay laakiin xaaska uu ka tagay waxay leedahay ardadan waa in la soo deeyaa isla markaana dacwadaha gabi ahaanba la tuuraa maxaa yeelay isaguna waa uu jeclaa iyaguna macalinkooda waa ay jeclaayeen arrin si accident ama shil ku dhacday waa ku talagal ma aysan ahayn inay macalinkooda ay dilaan laakiin xiriiraalintu weli dacwadihii ma aysan tuurin ardadan marka damaanad ayaa lagu soo daayay laakiin hadda qoyskii uu ka dhintay macalinka iyo weliba xaaskiisii waxay leeyihiin waa in ardadan dacwadaha gabi ahaanba la tuuro oo la soo daayo maxaa yeelay macalinkooda waa ay jeclaayeen isaguna waa uu jeclaa sidaa darteed ma aysan ugu talagelin inay dilaan oo arrintan si shil ah oo accident ah ayay ku dhacday marka arrintaasna waan arki doonaa haddii ardadaasi la cafiyo ama haddii xiriiraalintu dacwadahaasi ay sii wado oo ay ku soo ogto aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono